wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Engineer Cabdiqani Maxamuud Cateeye oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay maraaxilka kala duwan ee ay soo martay dhibaatooyinka iyo sidoo kale shaqaqada ka taagan gobolka Sool waxaana uu ka warramay doorka iyo sidoo kale dadaalada xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay gelisay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood sidii nabadgelyada iyo sidoo kale horumarka loogu soo dabaali lahaa isagoo ka warramay gudidii uu kamid ahaa uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland kulamadii kala duwanaa ee ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale waxyaabihii kala duwanaa ee ay kala hadleen dhanka kalena wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland waxa uu ka warramay xabad joojintii ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqday isagoo oo sheegay in aanay xabad joojintaasi ka dhaqan galin dhanka kooxaha nabadiidka ee markaasi ku sugan magaalada Laascaanood 2022 bishii December 2022 waxa lagu dilay magaalada Laascaanood ilaahu naxariistay marxuun Hadraawi iyadoo mar walba looga gal lahaa amba laga doonayay in wax lagu yeeleeyo amba lagu laayo hal doorka reer Soomaaliland oo dhashay gobolka Sool si ay Soomaaliland loogu weeqo amba lagu dhibaateeyo iyadoo marka ay bilaamaysay diiwaangelintii doorashooyinka ninkaas markii la dilay oo dadkuna ku jiray diiwaangelintii December bilaamaysay isteelaatakeedii ayaa waxa dhacday markii la dilay in iyadoo loogu talagalay horumarka iyo diiwaangelinta gobolkaasi in lagu carqaladeeyo ayaa waxa dhacday dhimashadiisa kadib shaqaaqa badan iyo mudaharaad badan kadib ciidankii Jamhuuriyadda Soomaaliland baa soo galay si ay shaqaaqada u damiyaan markay u damiyaan oo si aan loo yeelin ganacsiga iyo horumarka ka socda degmada inaan la dhibaateen horumarka iyo guryaha kadib dadkii bulshada ayaa dalbaday in ciidanka laga saaro dad badan waa loo xiray markii loo xiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu go'aansaday dadka loo xiray shaqaaqadaas in la sii daayo guddi lagu magacaabay oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa dhacday in gudidaasi in badan oo dadka bulshada gobolka Sool khaasatan reer Laascaanood la kulmeen oo gudida 3 ay qayb ka hayeen waxa dhacday waxa soo wada galay dhammaan garaadada u dhashay gobolka Sool iyagoo u yimid arintan shaqaaqada Laascaanood ka dhacday mar walba waxa garab socday dad ka faa'iideysanaya dhibaatada shaqaaqada Laascaanood ka dhacday inay mar walba dhibaatada ballaariyaan garaadadii baa soo galay markay taariikhdu ahayd bishii 26 halkii laga sugayay garaadada inay nabad iyo horumar iyo wada hadal waxay tabanayaan maadaama caadada Soomaaliland ay tahay in qof waloo tabanaya amba qof waloo wax sheeganaya uu wada hadal wixiisa ku dhamaysto waxa dhacday in garaadadii bishii 6deedii iyagoo go'aanadooda ku dhawaaqaya in kooxo hubeysan oo kala aragtiyo duwan ay soo weeraraan xarihii ciidanka iyo goobahan ku sugnayn wasiiradu inay soo weeraraan oo isku dayaan inay wax yeeleeyaan dawladdu waxay isku dayday inta kadib hadana inay iyadoo mar walba ciidanka qaranku uu difaac ku jiray oo ilaalinayay shacabkooda la khaldayo ee kooxaha kala aragtidii ay doonayaan ciidanka qaranka iyo Soomaaliland dhamaantii shacabkooda reer Sool khaasatan reer Laascaanood oo isku diraan waxay Soomaaliland ay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo go'aansaday in 10 February 2023 inuu xabad joojin bilaa shuruuda oo waxba lagu xirin si loo tuso dadka reer Sool jacaylka iyo wanaagga loo qabo in xabad joojin lagu dhawaaqo oo gudidii madaxweynuhu diray ee gobolka Sool gudiyeeda kaga dhawaaqaan dabadna waxa dhacday in nasiib daro isla maalintii habeenkii lagu dhawaaqay subaxnimadii dambe inay weerarkii hadana bilaabeen kooxii kala aragtida duwanaa ee hadana wada socday waxa dhacday in 12 February hadana 2023 hadana xabad joojin kale oo iyagu soo dalbadeen odayaasha dhaqankii in la joojiyo xabad joojintii baa shuruuda la sameeyay mar walba jabinayo weerarka sida caado ka dhigtay kooxaha kala aragtida duwan hadana wada socda
waxa dhacday dadaaladii badneed ee xukuumaddu sameysay waxa ka dhashay salaadiinta iyo dhaqanka iyo odayaasha anigu ku bogaadinaynaa xukuumad ahaan odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland marka waxaan ugu baaqayaa garaadada mar walba garaadadii reer Soomaaliland baa tihiin cid gooni uma tihiin cid gooni way dooratoon laakiin ummadda oo dhan baa u tihiin ummadda reer Soomaaliland oo dhan baa u tihiin nabadgelyo la idinka rabaa dadkana u talisaan baa laga rabaa waxa la idinka rabaa inaad ugu talisaan nabadgelyo inaad ugu talisaan wada noolaansho oo dadka walaalaha isku keentaan geesta kalena wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye waxa uu ka warramay weeraro ay maanta ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo qaadeen kooxaha nabadiidka ay ku sugan magaalada Laascaanood iyo sidoo kale ciidanka maamul goboleedka Puntland isagoo sheegay in ciidanka qaranku uu markasta heegan u yahay difaaca qarankooda isagoo sheegay in ay iska difaaceen kooxihii soo weeraray maanta ay taariikhdu tahay 20 bishii 2023 kooxihii kala aragtida duwanaa waxay mar soo weerareen ciidan xariyaha ay ku sugan yihiin ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qarankuna mar walba wuxuu u heegan u yahay inuu iska difaaco oo difaaciisa uu ku joogo waana iska difaacin si wanaagsan oo iska difaacin kooxahaas guul iyo gobonimo oo rajaynaya ciidanka qaranka waxa soo raacdo kale in maanta ay Puntland ay doontay in ay soo weeraraan jiido hore ciidanka qaranku aad buu iskaga difaacay waxaan leenahay Puntland iyo dhammaan toodba inay kaadsadaan oo dhibaatada iyo shaqo iyo foodada iyo docdocaynta ay wadaan inay joojiyaan